برور كليا أيا قرمسة محيا هيد مثل تفاح بيا هيد مثال كان ان سانكاغو أورا أوكي سانكاغو أورا ملا جاري كرا جوابت ومايا مسكح ذاضو أورتا أو دحري قالو سيدينو أدران إرنا إنان عافي ما دو أوكي نبا كدو عايستبا اللي يري إلهو جنكم ويديسن ورنكم محا حسيكا إلهو كنكم ويديسن أو كنكم ويديسن أو كنكم ويديسن قف لنا شيء أو أجنانه الله هي بدن قفك وان لا يابا وانا أقرابا walaalka riximkaaga oo xumaaday si xal loogu hela oo bartay magac beenbeena ama kursi beenbeena bal daawo Axmed Tuke iyo Dani Daandagax oo amaanba ka dhigan wixii laga cararayay mawduuceenu maanta halka ma aha Cabdinuurow waa ururkii dulmidiid ka bilaabnay jigjiga sidii uu ku bilowday iyo sidaan ugu tala galnay 35 qabiil ee Soomaali galbeed erayga markaad maqasho Soomaali galbeed yaano ubaxba ya maskaxdeedu curusa qoliyii cagta eeraana dixiribaa gala maskaxdooda erayga Soomaali galbeed ninka Soomaaliga markuu maqlo maskaxdiisa ubax baa ku abuurma ogaadeenka inta xunna dixiribaa gala haddaba hadduu wixii fiicnaa qofku uu ku noqonayo sun iyo dixiri maskaxdiisa saynu xalinaa saynu u dhinaanirnaa barnaamijka halkaas ku aadan yahay عبد حسن سودو عبد النور سودو إبراهيم مختار سودو معارض إيه محافظ واحد دونه أنا وحاب نجعل هاي معارض لأنه معارض ضد بنا أحمر يسا وهدو أغلي هايو هدو ده سيدي أبوان شيء أبوان دي هنا وشيء واسكو حاري محارق اسكو حاري إن وحكو أدنيا مركب موضوع هالكا وحان ربا صومالي دلمديد عبد المهد حاجي مقع ماسك بدش الشيخ محمد شيخ عبد المهد مقع لبح إلا كيسر شيخ بالعيد أن رجالين وعي قالين أياربنا برشة إلى لو ذاقنو برامج الصوماليا وكبوحو عدنا كبوحو إنا صفينا ربنا أن نلقي الصومالي وحكو سودو للدولة الجانبة أو مقعيك كلا وطأ وهذا الناس كم مجا عباش اللي حاد شنتي اللي شيء شنطة عيدة هالك هيد أيا هل قبل أو كونفورة هيد بهذا رشان لقدي مركز عباش اللي حلو دري ورشنطة الجور ما يجي هاري أوكي مركا ماشي اللي ياها الصومالي محن كلها يدور لنا أما الصومالي لنا ما قال لقدي شن صومالي قلبنا شن بالقدي دونا NFD na shamba laga dhigi doonaa halka marka la marayo ayaa hadana soo dhawow khadar soo dhawow iga soo wac lambarkii insha Allah khadarow waxaan ku su'aali ururkii dulmidiid barnaamij ku saabsan ninka soo diyaar u ana barnaamijka naga qayb galayo welcome soo dhawow shantan soconaysa maxaasika calaamada jaamacadda cagaaran waa shan geedka barwaaqada matalaya shan dhudba ku yaala okay shanta tiirka islaamka haddaad sumada u fiirsato koonkan oo dhan buu qosaya ducada nabi aadan calayhi salaam raganimada runta halganka sumadan ayuu ku dheeyahay ani iyo doqon maxaa kala haysta soo dhawow isoo wac ninka la yidhaaho khadarow isoo wac iga soo wac moobilka waxaan in yaroo aan soo gudbinaynaa dulmidiid taraankii bas beelay ninka waday ninkii ugu dambeeyay yuu ahaa okay reer kuumadow Soomaali
waxaynu ka soo bilaabaynaa qoys hoose meesha ugu hooseysa markaan Soomaali joogo meesha ugu hooseysa kuumadan bal ku ekaanaya reer kuumadow okay si aan ugu dhamayno Axmed Madoobe oo miran reer kuumada waxa ka dhashay nin raga iyo doqonka Soomaali ugu liita haddaba seenu dabargoynaa doqonka Soomaali ugu liita ee xumaan oo dhan ka dhigi amaanba geela habeeda markuu awrku dibidhisan kaadida ayuu ku subkadaa doqonka kuumadana uba ku dibidhistaa xumaanta ninka kuumada ah ee Axmed Madoobe u haya xal kitaabku u dayay ee xal u hayo maxan soo fariisto Axmed Madoobe eray xalaal ah talaabo xalaal ah action xalaal ninka u hayo isoo hor fariiso intaana dhiman waaba laga yaabaa inaad saxsan tahay bulshada hayna aragto haddaba waxaan rabaa campaignkii ugu weynaa inaan qaadno reer dulmidiid inaynu inteeni dulmidiid ahayd kursiga markasta aan diyaarino sharafta markasta aan diyaarino waxa la wareega qandaraas qaato qandaraas qaate hello عليكم السلام خضر وانكم مقلا ما انت وحينو افينينا horta marka hore soo dhawow waxaynu afinaynaa magacii ugu fiicnaa ee dulmidiid dadka badankiisu ma yaqaanaan sababtu ku baxay isagoo rikoor oo qoran ayaan ku hayaa ururka nasiibka badnaa magaca nasiibka badnaa waxaan ugu talagalay 35 qabiil oo Soomaali galbeeda in laandeeraha ugu laandeeraysan iyo laangaabka ugu laangaabgasan inaan ninka soo qaadno horta marka horeysa qola kasta hal ninka soo qaadno oo saxaan oo yiraahaan waxaan nahay mid qabiilka waan tirtiraynaa qoomiyadda Itoobiya la tartamaynaa xaqeena ka soo ridinaynaa okay akishay ninkaasada idorow ninkaaso gadabuursiyow ninkaaso okay soco waxa ku ciyaaray rag jid waaqa oo ka dhigay ma rabno Soomaali waa jid waaq sida ogaadeenka magac ogaadeenaya u hirgeliyeen baanu kan u hirgelin ogaadeenkuna way ku taageereen inay US ka gashaan haddaba waxaan ogahay oo laf marka kaliya jid waaq u helisay inay magacan ku shaabadayaan jid waaq oo laf oo koow ah baashi doqontahay haddaba ururkii halka marayay ee sharafta ahaan Soomaali u talagalay waxa dumiyay oo laf oo taageertay iyo qandaraas qaatayaal jid waaq ah oo kula jooga oo Mareykan jooga ragaasaan rabaa inaan afino meeshu ku dambeeyay waxaan rabaa inay bulshadu kala ogaato ururkii dulmidiid ee nasiibka badnaa yaa qandaraas ku bedeshay mawduuca intaad aqoon u leedahay baan rabaa bulshada inaad la wadaagto soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أديك يدا ودياشا أديك وداون دونا بوار السلام يا ورا شعب قومة الصوماليات القبس وحنا كدقنا يا هذا الكاجي هذا الكوكب اللودي تدكي بابي أما كسر تدي وحا هو الرئي ONLF marka aad eegto ONLF marka ujeedada ay iyadu kala hayd wax Soomaali oo dhani ay ka kooban tahay inay abuurmaan ama ay samaysmaan ama la curiyo waxa ay lid ku ahayd wixii iyagu ay 30 sanadood u halgamayeen ee ay u dhimanayeen ee ay dadkooda u baabi'inayeen wax ka soo horjeedo noqonaya oo dhismaya bay ujeedadiisu ahayd hadalkaaga labaad ee ku xigay ee ahaa wax ummad Soomaaliyeed leedahay samaysankiisii waxa baaburiyay jidwaaq iyo asaliyan ONLF marka aad tiraahdo magaca ogaadeen oo ku soo baxo dadku ma wada xuma shacabka ogaadeen waa shacab fiican sidaan anigu aaminsanahay ama aqoontayda iyo aragtidaydu ay tusayso Soomaalinimadana jecel laakiin mar walbaba leaderka danta lihi waxa uu ku hagaa ummadda mar walba sida danta uu leeyahay ay ugu suurto galayso in uu ujeedadaas gaadho marka
hagitaankii iyo bixitaankii ONLF ee ugu horreeyay 1984 baa la bixiyaa la yidhahdaa magaca ujeeddadii loo bixiyey waxay ahayd group uun ka cararay jabhaddii WSLF ee Soomaali galbeed u dagaalamaysay sii galbeed markay baxday unbay iyaguna ONLF la baxeen marka kuwii faylarka ku noqday ama ku fayl garoobay jabhaddii Soomaali galbeed dhexdeeda oo cadhooday unbaa intay xaggan u carareen uun iyaguna samaystay uun magacii gumaysigu bixiyey ee labada gobol ahaa ee Ogaden markaad Ogaden raskiis aad maqashana waa laba gobol iyo badh wuxuu ka soo bilaabmaa Wardheer Qabridahar iyo gobolka Nogobeed qaybtiisa gobolka Jarar buuna marin Hawd iyo Reserve Area faafan buuna marin gobolka Afdheer iyo Liibaan iyo goboladaas buuna marin waa intaas uun inta qarrada marka aad eegto Ogaden raskiis la odhanayay ama la magac intaasna waxa uun ay ahayd qayb la arkay in ay ka soo horjeedaan ama loo isticmaali karo in jiritaankii awoodda badnaayee midnimada ummadda Soomaaliyeed lagu baabi'iyo ilaa taa la qaybiyo oo taa loo sameeyo cillad ay ku baaba'dana inaan laga guulaysan karaynin aragtiyihii ay aaminsanaabay ahaayeen qolooyinkii aan ogolayn in ay Soomaalidu guulaysato marka fikirka kulla mid ah kuwa sita oo bulshadu rabitaanka ay doonayso iyo danta iyagu ay leeyihiin mar walba ay isku lid yihiin bay ahayd kuwii dulmidiid baabi'iyey at the same times haddana in ay kacaan oo bulshadu dadku ay aragto si ay u hirgasho danaha ay lahaayeen waxay lagama maarmaan noqotay inay shacabka dhex galaan marka wixii faahfaahinaya kale iyo wixii aynu sii dhexgalayna laakiin labada qaybood sidaasay isu mataleen mid waliba dan gaaray wadatay dantooduna waxaa ka madax bannaanaa shacab Soomaaliyeed in uu future iyo mustaqbal yeesho okay su'aasha kale doonayo bulshada inaad la wadaagto nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri walaalka u hiili hadduu gardaran yahay iyo haddii la gardaran yahay suldaan sugahaaga ama garaad sugahaaga ama malaaq sugahaaga waa Soomaali haddii uu suldaanku qaldan yahay oo dhaba khaldan marayo waxa waajiba inaan qabanno oo toosino ka waran dhaxal sugahana sidoo kale haddaba intaana Soomaali gaarin waxaan rabaa reer Kuumada inaan u hiiliyo reer Kuumadana dee jifaan ku abtirsan inaan ka bilaabo jifada aan ahay Soomaali saddex baa qaybsaday si loo helo xal waxa qaas wadaad okay oo dhaxlay wadaad aan wadaad ahayn oo dhaxlay wadaadkii suldaan suge ama garaad suge ama golaal dhaqameed oo ka leexday sharaftii oo xisaab la'aan ay sabab u tahay iyo calool weyne qandaraas qaatay siyaasi oo maxaan liqaa kaliya ah oo jaranjar ka dhigta shacabka saddexdan baa qaybsaday marka waxaan rabnaa inaan saxno haddaba Soomaali intaynaan gaarin intaynaan Kuumada gaarin adigan ila hadlaya ee jid waaqa ah okay soo curadkii Kuumada ma tiidin soo garaadkii Kuumada tiidin waxaan rabnaa inaan suldaan sugihiina iyo garaad sugihiina ayaa kow ka ah tareenkan dulmidiid nimankii qandaraaska la cunayay inay ilay haddana dumiyay waxaan haynaa isagoo record ahoo tirada ka badan maanta waxaan rabaa inaan mar labaad aan cusboonaysiino dulmidiid tii xorta ahayd reer Kuumada meeqay ku leeyihiin dawladdii xorta ahayd inay dumiyaan haddaba reer Kuumada haddana meeqay ku leeyihiin jidwaaq inay dumiyaan dambiilaha koowaadba waa jidwaaq ee Soomaalidii xorta ay duminaya shalay tareenkii dulmidiid waxa dumiyay jidwaaq iyo xertoodii oo laf ee xaraan tahay maantana dawladdii xorta ahayd meeshii xorta ahayd ninka duminaya iyo kursiga lagu duminayo waa Kuumada kasta koona adigan ila hadlaya ee jidwaaqa kursigaagii baa lagu duminayaa Axmed Madow baa loo adeegsaday haddana baarlamaankii xidig oo kursigii jidwaaq ku fadhiya ayaaba gudoomiyaha duminta kowka haddaba qandaraas sugihii maxaan ku dhahaa ama suldaan sugihii ina bade maxamed bade
معلنا وحد فشا وإن فاتكم إلى بدي يرهدول وكوا السجياشة إنك دا جوده مرايكن كوا جوجا أيان ربا إن درمديل عسبوري سينو حاجينو كم مرة إلى بدي يحرتيس. اوكي سؤال فيعن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. horta wax walbaba marka aad doonayso inaad raadiso wanaagiisa ama aad isbarbar dhigto wanaagiisa iyo xumaantiisa waxa la raadiyaa asalkiisa su'aashu marka waxay noqonaysaa asalkiisa aynu ku raadinaynay suldaan cabdiraxmaan bade يا سلطان لماذا كان دقي؟ هركي ده وسلطان هو هذا المرنية. ما يا من قست حيل مريم باكر دقي. هي كل جود سكر باكر كل جود من قست حيل مريم دي حيل إسلام كوي كهرية كل مية كلية حلال كا. كل عبد الله قرباش وحى وها ترجمان ك باشا أبسكول سلطان كي أي دورته وترجمانه هانجر. إن قال مركو ليه هاي بلده كان عذاب بري إياتا كان عذاب محيبا هاي إنتو إن بدل ليه هاي أنا بحين بليه أبسكول الله يسبضي أرنقايا هاي. أدوا وقت هراي هاي لكن كلي معها مركا الله جرى والوال دركيسي أبسمار لن حين السلاسي يميل اللي يوحد بحي من جستي مركا إلى بدل معها من جزء أو دمية waxay ku kala dheereeyeen marka salaadiinta la sameeyay fulinta waxa la soo faro marka bulshadan jidwaaq ee maanta halka joogtay waxa halka dhigay waa hogaamiye dhaqameedada okay marka aad eegto hoggaan dhaqameed umada uu hoggaanka u yahay miyuu baabi'iyaa mise horumarkeedu ka shaqeeyaa haddii ay madaxaaga ku soo dhacdo adiga iyo inta kale dhageysanaysaba jawaabteedu waxa ay tahay markii hore ma loo sameeyay inuu hormariyo mise waxa loo sameeyay inuu baabi'iyo inuu madaxa musbaar loo sameeyay madaxa inuu musbaarka mid kasto aqli leh inuu madaxa musbaarka hadda loo sameeyay inuu dadka musbaar madaxa kala dhaco in ayna shacabkaasi hore u kicin shacabka baabi'intooda wax aan ahayn una ka shaqeyn wax alli iyaala waxa uu nacab yahay iyo wixii ka soo horjeedsada ee cabsi geliyana awood ka dambaysa la yiraahdo adeegso oo ku dir iyaga jabinaye si yaro fudud baan ku tusayaa ninkan hadda aad ugu yeedhayso suldaan suge ama maxamed bade goormu ku soo biiray dulmadiid intii dulmadiid ka horeysay muxuu ahaa qandaraas qaatu ahaa laba siyaabood baan u kala qaadinaa suldaan maxamed bade iyo suldaan cabdiraxmaan bade way isla shaqeeyaan intii hadda ka horeysay cabdiraxmaan bade gudihii buu joogaa ilaa iyo inta ay isbedeladani dhaceen cabdiraxmaan bade culayska ka soo fuula dawladda deegaanka ee markaa jirta haddii uu waxa uu u baahan yahay ama qandaraaskiisii ka waayo danihiisii uu ka waayo ileen reebade marka aad eegto waa abaskuul dadka ugu hanti badan haddana qof reebade oo shaqeeyaa ma jiro hantidan xaggee ka keenaan marka waa kursi waa jigjiga caasimadda jigjiga ayaa sabab u ah oo keentay iyo nin jidwaaqa uma ogolin inuu madax noqdo waxaan rabnaa qandaraaska ogaadeenka iyo doorka noo badinaya وأنت ويلك أذيرك وياه وح ومدينك سو وكسارك. مرك أنا وحن ربا إن صدق قيبادنا نكلا قاضي أن قيبنا الشعب كويدية قيبنا أن تنكسوا جبيو إن عبد الرحمن بدي حدي ودجان كعلاس كالصافورة وحقوق قليا محمد بدي محمد بدنا هالكاس وضدك كعيايو هذا وحال حقريه ولا دوسي ومرك ومقع عليك سدو وحي جدواق لهابا للدوتسي هداد أركتم محمد بدأ أولا وحي جدواق لهابا الدولة دوديثتي عبد الرحمن بدأ بدها تشوقبا قندراس كيسي هوليسي وحبا كسعون واي أنا رجعني ما نعرفه حدي وحلا كرسي السلطان كأما جگدا سيدة هجامية
ma noqon karo hogaamiye xum hadduuna shacabku xumayn anigu ina bade suldaankaasi gudaha jooga iyo kan midna anuu dambiile kama dhigayo haddii la xisaabin waayey oo kaale la odhan waayo farta loogu yeeri waayey oo la odhan waayo kursigan annaga dumata heshaa waxani waa qalad wuxuu doonuu samayn qof adi maxaa kuu diiday inaad hadasho oo tidhaaho no suldaan suge dhaxal suge halka ka leexo waa khatare maxaa kuu diiday dabeecadda iyo environmentiga dadku meesha ay ku nool yihiin baan u saamaxayn baad soranaysaa bas marka aad bulshada qaybaheeda kala duwan la kulanto qof waliba waxa uu kuu sheegayaa ama aad isla qaadanaysaa dhibaatada haysataa inuu isaga yahay jigjiga kuu daayey khadarow jigjiga kama had imika daaba jigjiga iyo cabdiraxmaan iyo kulmiye inaga daa kii maraykan joogay kii joogay australia iyo london dulmidiid ninkii duminayay ma ahayn cabdiraxmaan bade wuxuu ahaa maxamed bade inaad tidhaaho sharab soo fadhiisa meelkan maxaa kuu diiday adiga kii xorta iska dhaaf gumaysiga halkaa inaga daa inagu waxaan ku ekaanaa iminka qurbaha maxamed suldaan suga dhaxal suge maxamed bade wuxuu matelay suldaan isagoo suldaan ahayn oo lagu caano shubay buu matelay wuxuu matelay siyaasigii jidwaaq wuxuu matelay siyaasigii rooble wuxuu matelay sheekhii wuxuu matelay afhayeenkii intaasoo jaanis markuu qaadanayay adigu maxaad u odhan weyday stop maxaad u aamusnay adigoo jidwaaqa adigoo roobla adoo abastuula ilamaa iyo xad bay qaadataa marka aad dadka dhaqankooga iyo sida ay u fikiraan aad eegto inta faraha badan dadku waxay xeeriyaan dhaqan qofku inuu dhibaatada haysta ka hadlo waxa uu ku qiimeeyaa meesha uu kaga hadlayo iyo munaasabadeedii ma tahay waqtigii laga hadli lahaa iyo xilligeedii ma tahay marka hadda sida aad muuqaalada aad ka daawan karto dadku sida ay u fikirayaan iyo bulshada dhexdeeda guuxa ku jiraay ilamaa iyo dhibaatadu ay wada gaadho qof walba ay gaadho soomaalida waxay tidhaahdaa dheriga karka maxaa ka keenay kuleelkaa ka keenay isbeddelka dabeecadaha dhulka iyo jawiga ee soconaya ee siyaasadeed ee dhaqan dhaqaale ee qayb walba oo bayaadu ku nooshahay iska beddelaya baaba fududaynayaba qof waliba inuu markan isweydiiyo no xilligii waa la gaaray laakiin wax waliba waqti iyo xilli ay leedahay ay bilaabanto meel ay ku dhammaatana way leedahay marka dadka oo dulqaad fara badan iyo dad danahooda kale iska qabsanayaba intaa waqtiga soo gaarsiisay laakiin hadda waxaad moodaa marka aad eegto jaaniska iyo fursadaha iyo dadku sidaa u fikirayaan in la joogo waqtigii ay soo gabagaboobi lahayd in ay cid hoggaan dhaqan iyo dad matashaay dadkii baabi'intooda inay ka shaqaysaay ay u sii suurto gasho waqtiga iyo wacyiga lagu jiraan aan saamaxaynin sida aan aaminsanahay sida ii muuqata taasaaba soo gabagabaynaysa okay xalay qololkii caawi dhibanaha ama dhibic dhaqaale ama anuu horta doqor maxaan u ahay waxaan siiyey 7 days in dhaxal suge maxamed bade ay ka keenaan tusbax iyo tusbeh mid ka keenaan boqor ilay ayaa 7 days nimankii tolkeen ahaa ee hilibka cuni ogaa yaa ku xukumay ogaadeenow inaad dagaalka gashaan inaad dagaalka naga gashaan markii jigjigi iyo wardheer iyo qallaaf la xoreynayay iyo maxaan ku dhahaa inaad iska noqotaan oo meeshii boosaas ku noqotaan kala doorta waanu gelaynaa sabtana way soo xaadiraan dagaalkana ma soo galaan marka boqor ilay baa u yeedhay 7 days buu ku xukumay sida taariikhdu noo sheegayso wuu ilaa boqorku okay 7 geeyo oo isha bidixdaala 7 faras 7 laxaad oo isha bidixdaala 7 laxaad adigu 7 shay oo wada isha bidixdaala keenay 7 days boqor ilay waa ninkii arintaa keenay maanta ay dhaafta geeska qabo intaas baynu odayaashii jidwaaq iyo dhaxal sugayaashii aynu wax u sheegaynay 7 days ma ahayd 17 sano aan la hadlayay ina bade kursiga iyo odayaashiina kursiga maqan in la soo rido ina bade u dir waxaad ka keentaa xal kursigan maqan ee lagu duminayo waa laba shay kursigii uu lahaa ayaa lagu duminayaa dowladdii Soomaaliyeed inteen lag buu danqanaya okay kursiga markii hore uu xidig haysto dawaaba reewada kuumadee iska daaya ayaan lahayn laakiin hadda kursigii oo kolka horeba xaaraan ahaa inuu ku fadhiyo
ayuu haddana dowladdii Soomaaliyeed ku duminayaa ina bada u tag guddi u dir war kursigii aad lahayd ina badow dowladdii Soomaaliyeed ee xor tahayd baa lagu duminayaa waxaana ku duminayaa xidig intee in lag baad ka danqan ina badow okay soo weydii intuu ka danqanayo kursigan maqana reer Rooble ma u soo ridi haddaadan u soo ridayn ma naga daynaysaa annagaa soo ridaynay xasadka ina bade inta iga keen intee lag buu Soomaali yahay intee lag buu oday noqon karaa intee lag buu sharaf qaadan karaa reer kuumada waxaan leeyahay waxaan ka bilaabayaa ka iixiga ina badaha suldaan sugaha ina bada dhaxal sugaha Mareykanka idila jooga ee dheer ee qoorta dheer ee gafuurka reer Cabdillah wata haynu ku bilowno nin kasto dhaxal suga ah inta in lag bay dhuuntu furan tahay oyna sharaftu u furayn waan kala ogaanaynaa reer kuumadow haynu qabanno kolka u horeysa ina bade si aad sharaf u yeelataan si Axmed Madoobe oo miiran aan uga takhalusno si ina ilay oo damba una soo noqon ina bade soo fadhiisiya reer kuumadow Mareykan joogow waa imisa 3 milyan baa ugu yaraan joog reer kuumade haynu ku bilowna ina bade intee in lag buu sharaf u idin keenay intee in lag buu sharaf dhac idin keenay halkan bay xisaabtu ka bilaaban khadar adiga kooxdaada ina bade waxay keentaan shaygan sharaf buu leeyahay iyo shaygan sharaf male future-ka iga keena waa ku day intaadan taas aanan u gudo gelin laba qodob baan horta mid ku hormaraya qodob waa qodobka koobaad waa markii uu Cabdiraxmaan Adsababi yimid xilligii dulmadiid iyo abaabulkiisii uu socday oo shir jaraa'id intuu uu qabtay uu yiri maanta laga bilaabo anigu waxaan ahay suldaan Soomaaliyeed halkaa waxaad moodaa inuu dadka wixii xilkii uu u hayay uu u sii daayay oo uu yiri waad u madax bannaan tihiin dadkiina laga sugayo iyagana ay u taalo in ay deecidii dhaqan u hogaaminaysa ay iyagu doortaan sidii ay u dooran lahaayeen iyo sidii ay u fulin lahaayeenna iyagu ay ka tashadaan waqtiga ku habboon iyo xilligeedana ay hore u abaabulaan oo ay samaystaan xidig iyo kursigan shirar baa socda qaybo fara badan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka mid ah aan xiriir la sameynay meel fiican bay wax noo marayaan waxaana rajaynaynaa maalmaha soo socda anoon kastii hordhacaynin sida aan rajaynayno iyo sida shacabka ummadda Soomaaliyeed dantooda ay ku jirto haddii ay wax u dhacaan in ay suurto gelayso in ay dib u soo noqono ama aynu dib u helo kursigii iyo kuraastii ka maqnaa beesha dhexdeeda kaga maqnay marka wax walba waxaa loo baahan yahay in waqti la siiyo aad kaga fikirto iyo mid aad ku fuliso wixii aad doonaysay inaad hiigsato ama aad doonaysay ama aad dareensanayd inuu kaa maqan yahay siduu kaaga maqnaa iyo wuxuu kaaga maqnaana aad raadiso marka waa iska soo gabagaboobaysaa hal midoo keliya toon baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay qofku markii uu ku yidhaahdo anigu xilkii aan ku hayay waa ka tegey oo suldaan ummadeed baa noqday inaad aniga ilama qubanaba dee markaas in beeshu ay sii ahaato iyadee u taalla ayaheed iyo fiiskeeda sida uga tashan khadarow reerkii qof markuu dhinto lafiis uu dhintaa barnaamijkan ka sameeyey jijiga ma daawatay odaygii kabla laxahaa mari hore u dhintay dhashiisii ka hor bay dhinteen wayna nool yihiin waxay cunaan anigu salaadiinta iyo Soomaali galbeedda la gumaysto waxaan soo arkay idinka gumaysi ka hor gumaysigaas waxaad la qabtaan Soomaali weyn laakiin idinka gumaysi kala ba idin haysta okay odayaashiina bay idin gumaysta suldaan waxay u yihiin iyo garaad inay idin gumaystaan in ay idin wax sababtaad madaxweyne leedinku og inkastoo oo la finta jirto ana amba jeclay madaxweyne inaad noqotaan haddana iyaga Niger bay u jecel yihiin haddii maanta saldaladiina la yidhaaho ninkada buursiya madax laga dhigo ama nin isaaqa ama uu xaq u leeyahay ama nin akisha ah nin kasto odayaal dhaqameedii wuxuu dooranayaa qolada kale ma isweydii sababta u dooranayo oo nintii waa ogolay ما يبغى شهر. هلك يبير علي.
odayaal dhaqameedkiinu intana Etoobiyaba gumaysiga toban la qabtaan yaa idin gumaystaan deedhi odayaal dhaqameedkiinu ma ogolo nin jiwaaqi madax inuu noqdo waxay jecel yihiin Soomaalida kale inay noqdaan tana gumaysiga haddii laga tagi waayo gabar reebade wiil ay dhashay oo gadabuursi ama isaaqa ama cid kale ogaadeena ama gabar ina dool dhashay kulmeel dhalatay oo seedigiina ama abtuutihiin halkaas ka soo gashaan halkaas idinka idinku horeyso dawladda sida horta uma ogidin idinku ila idinku jirtaan gumeey oday dhaqameedkiin idin gumeystaba waa laba siyaabood waa sax waa runta waa ku mahadsan tahay aragtidaas ama su'aashaas inaad keento su'aashuna waxa un bay noqonaysaa laba siyaabood un bay ku timaadaa mid waa kow haddaan kuu sheegayaa adiga iyo inta idin dhegaysanaysaba odayaasha jooga meesha lacag fara badan iyo dakhli fara badanna waxa ay ku helaan annagu dawladdii waxba kuma lihin haddii aad wax ayagana sii weydo shacabkii baa kacaya iyo caasimadii iyo magaalada jigjiga ah marka haddii uu qof iyo hadda tusaalaan ku siinaya aynuba kala qaadaba jid waaqaynu idhaahno abaskuul waxaa ugu laandheeraysan waa guleed jaamac ma hubtaa inay ugu laandheeraysan yihiin ma hubtaa yaynaan dafirin de waxay xaqiiqaada anu in la dafiro ma jecli marka israaciilada abaskuul waxaa ugu fara badan waa reer guule jaamac abaskuul waa maxamed subeerka ogaadeenku waa reer guule jaamac waan kugu raacsanahay laakiin dad baa beeninaya anu waan kugu raacsanahay laakiin waxaa berigii hore ahayd hadda ma hay ku leeyihin waqtigayga okay waaya si ay macno u yeelato waxaynu ka hadlaynaa ummadayna dhegaysanaysaana wax inooga faa'iido nacam reer guule jaamac waa laandheeraha abaskuusha waa maxamed subeerka ogaadeenka sidaasoo kale waa saldanada beesha abaskuul sidaas oo kale waa meesha ay abaskuul ka dhaqaaqi laaday nacam taayir kasta oo abaskuul u dhaqaaqo oo u rogmada guule jaamac baa burburiya guule jaamac taa ma isugu jiraa maya dad shacabka iyo dadka shacabka ah dhibaatada ku dhacayso bay la mid yihiin waa gobol waa dadka kali nationka kaliya ee madax dhaqamadoodii iyo siyaasiyiintoodii gobolkii ay lahaayeen ay baabi'iyeen iyaga oo la kaashanaya kuwa aan doonayn inay gobol yeeshaan sidaas oo kale dawladdan hadda jirta dulmidiid baa riday hal qof oo reer guule jaamici agaasimo kama aha wasiir iska daa wasiir ku-xigeen iska daa madax xafiiseed iska daa agaasimana kule madax xafiiseedna kuma le wax ay ku leeyihiin oo ilaahay abuurtay waxaa ka jira cabdidhuub iyo ninkii dulmidiid ku jiray reer Sweden-ka ahaa magaciisa ii sheeg maxamuud ayib labadaasina waa house nega labaduba waxay xukumaan oo ay mas-uul ka yihiin nadaafadda madaxtooyada ayaa suuntay dhaqan dhalinyartii iyo dadkii ugu faraha badnaa ee aqoonta lahaa ee qabri bayax ka soo baxayna iyagoo bilaa shaqa ah bay magaalada qabri bayax iyo magaalada jigjiga daadsan yihiin marka tusaalaha soo qaatay maxay wax u noqon layihiin dadku madax dhaqamoodadooda ku taagane laba isugu darsantay oo challenge noloshu waa challenge adiga iyo walaalkaabaaba challenge sameeya inaga ogaadeen baa challenge inugu hay ogaadeen inuu jid waaq soo kaco siyaasigiisu dadka shacabka aanu kama hadlayo siyaasiga ninka ogaadeen inuu jid waaq madaxa kor u soo qaado arko ma rabo maadaama oo uuna rabin marka yuu uga faa'iidaystaa suldaankiisii iyo hogaamiye dhaqameedkiisii oo isagana aan rabin inuu qof isaga dhaafo baa isagana u fududaynaya in aan meesha cidba soo marin marka labadaasi marka iskaashadaan marka waxa ay noqonaysaa uun qof ceel inta lagu riday dhagax weyn dusha laga saaray dhagaxii marka aad iska tiraahdo dhinac meel aad ka baxda aad heshana mid kale unbaa dusha lagaa sii saaraya marka labada caqabadood baa marka haysata mujtamacii iyo dadkii horumarkoodii iyo wax noqodkoodii iyo fursaddii iyo jaaniskii dhalinyartooda ay helaysa dhalinyarta ugu faraha badan jid waaq oo dhan marka aad eegto gebigoogaba waxa dawladda ku jiray 6 qof ma dhanna
وصونها قبر بيح يتجينا doorashadii ugu dambeysay dadka ka codeeyay ee degan lagu qiyaasay waa milyan iyo 800 oo kun 767 kun oo qof baa ka codeeyay doorashadii ugu dambeysay marka inay erigiis maxay ka faa'iideen inay erigna maxay ka faa'iideen inay xilligiisii bay badhaameenba because inay erigiis wuxuu faa'iido u ahaa inay waxa uu joojiyay qandaraasadii iyo lacagtii baadda ahaa ee hoggaan dhaqameedka la siinayay hoggaan dhaqameedkuna firimbigii bay afuufeen dadkii shacabka ahaa oo baahan oo dib u dhac fara badani ka muuqdana waxa ay la qaateen ay yidhahdeen ilaahay hadduu garansiiyey wixii ay hore u garan waayeen taasaa marka labadaasaa isu qabatay foolkaanaduna sidaasuu ku qarxay waxaan la yaabanahay laakiin dadkii shacabka ahaa ee revolutionka iyo kacdoonka sameeyey ee dhibaato haysata kacdoonka ka sameeyey ilaa hadda dhibaatadii ay haysato maxay dib u fikiri waayeen oo oran waayeen war wixii aynu soo sameynay iyo awoodeenu waba la tijaabin bas marka aad tijaabiso in aad wax qaban karto ama aad wax noqon karto faa'iiday leedahay maxaa haddana dib u aamusiyey waxa ay sugayaan in labadaasi marka ay kacaan ay yidhaahdaan haddana qandaraasyadii waa naloo diiday madaxa kaga taagani mise garasho iyo caqli baa uga saa'iidayo oo weji kale iyo macno kale iyo qorshayaal kale ku maqan yihiin oo ay doonayaan inay waqtigeeda iyo xilligeeda kaga faa'iidaystaan okay mawduuca jigjiga dhibkiisu aad buu badan yahay haddaba bal ilaahay baa ka sugaynaa farajad inuu keeno xaggaase xaggii xorta ahayd aynu ku neefsan lahayn ee Soomaaliya ayaa haddana sharaf dhac oo haddaynan gurmad aynaan samayn nin reer kuumada ah sheekadii Turkiga iyo Carabta dhaxmartay maxay ahayd ninkii Ingiriisku yiri ninka madaxiisa keenay nin Turkiga Carabka ah وهالك أكون مالجلية وحد عدون تحدي أينان كديدين أينان كدجالمين أينان كعدون سمين شرف در هذا أي أحمد مذوبة يكوحه وطو أي سوجي ذيان يكرسي جارحان يديكو الليدين غير رب لجد واقو إن دولة القدمية إن أنا وحان مثلا هاي إن منك كوما ذا ماشي لو أركبه كورك لقى جرى الدورة سيدا درتد هاي نصمينا كعدون دولة صومالية تقدر أي نقطة جرى دمبيلها ريكومده دمبيلها maxaan ku raaa reejid waaq meesha ku jirana aan farta ku fiiqno hadaba kacdoonka sidii aan u soo bilahayn haynu falooyada qabano ku socda xiriir badan iyo connection badan waan leenahay arintaasna way socotaa sida aan ku sheegay inaan ka sii hordhaco ma rabo waqtiyaasha inagu soo aadan ee ugu macquulsan ee ugu dhow in ay sida ay wuxuu rabno inay wax u dhacaan baanu rajaynaynaa sideeda banaana qofku haddii uu daalin yahay ma guulaysto daalinnimaduna waa ta meesha ina dhigtay inaga iyo reetolkeen sabab ha u ahaadaane aakhirkana sida aad sheegayso waxay noqon doontaa un waqtiyaasha inagu soo aadan iyo sida ay wax u socdaan iyo saadaasha la saadaalinayo inay noqon doonto un in uu xaq darruhu unan marna guulaysanayn xaqa uu ka maqan yahay xaquuqdiisa iyo xaqa soo ku helay marka waan soo gabagabaynaynaa waxaan dib ugu xasuusinayaa kursiga maqan iyo sharaf dhacaas ina bade nagala qayb gali hadduu nagala qayb galayna inuu naga dayn xasadka iyo qonofka isaga iyo oon lafa mawduucaas ka soo dhameeya reer kuumada waxay ku badan yihiin Mareykanka Cabdixakiin soo dhawow hadday daawanayso Mareykan ma joogtaa odayaasha reer kuumada shir suu keena war sharaf dhac way noo keenay ninkii Axmed Madoobe ahaa waliba kursigiini gaar ahaan reer Roob la jid waaqow baa la idinku baabinaya ina bade kacdoonkii dulmidiid oo kalaan sameeynayna ma raba inaan cafino war hadda wixii ka dambeeya jidka saxda ah ma qaadan mise ma qaadanayo intaas aan idinka rabaa soo dhawaada Cabdixakiin si gaara Cabdixakiin oo adaa jooga Mareykan kursigaagii aad ku lahayd Soomaalidii xorta ahayd ayaa lagu dubinayaa dawladda Soomaaliyeed okay Mareykanka waxaa jooga ugu yaraan 3-4 milyan oo reer kuumada ah waxaan rabnaa dawladda ilaa markastaba dawladda Soomaaliyeed inagu ma la gumaystaa haddana dawladda Soomaaliyeed inagu ma curin jiray inagu ma badalin jiray shaqadeena wata yaana booraha waxaan rabaa dawladdan masaakiinta ah ee caalamka iskugu tagay ee dhurwaayadii loo isticmaalayo Axmed Tuke iyo Axmed Madoobe iyo waliba labadan qadar waxaan ka haylo mid kale oo gaajo socota wajigiisa oo Axmed Madoobe u hadla oo reer kuumada isagana soo ogaada kursiga ugu fadhiyo ilaa waa kulli waa Maxamed Sumeer
وكمان كحدا مكي بالعضبة مكي ويتين با مكي قلميس با كالف تيسا بالما سوقا تان كرسو فديو خضر هلو وكبحان مالين خضر ان لبدا نين ugu qaab daran ee baarlamaanka ku jira ee duminaya ee kumada matalaya labaduba kursi ku fadhiyaan waa kursi xaraan oo ay dhaceen mid isaga lambarkiisa waa la hayaa waaniga shalay soo gudbiyay ka kalena soo gudbiya Cabdi Xakiin waa daawanaysaa baan u maleynayaa waxaan rabaa shir degdeg inaad qabataan oo dhaxal sugaha adu yeedhaan oo tarankii dulmidiid ee bas beelay ayaa mar labaad inaan curuna aan doonaynaa isagii waxa u dambeeyay niga la ilaa khadar feerweyne bal bar labaad sharafteeni ha soo celino midnimadeena ha soo celino Soomaali oo dhan hamidayno dulmidiid han ahaano kelmadda dulmidiid macnaheeda han fahano dulmidiid markaan sameeynay barnaamijka waxa loo yaqaan qandaraas qaatayaasha inay sameeyeen markaan suubinay jigjigaan joogay kelmadda dulmidiid macnaheeda waa inaan fahanaa waxaan ku bilaabay onlaf waxaan ahay dulmidiid ogaadeen ma noqon karo waaban ahay ogaadeenka dulaysan ma noqon karo okay halkaas ka bilaabantay akiisha ogaadeen ma noqon karo haddaan noqon lahaa oo reer kumada aan soo noqon lahaa iidoor ma noqon karo ciise ma noqon karo gadabuursi ma noqon karo halkaas ka bilowday magacu dulmidiid waqtigu bilowday ninkii u baahan oo ila soo xiriid wuxuu yaalaa horta anu doqor maxaan u ahay ama Afrika maxaa ka dhigay library-gaas ka buuxa waxaan idinkaga tagayaa reer America reer kumade oo dawladda Soomaali duminaya inaan u horseedno Soomaali oo naahno kalbigan nama matalo doqonkan nama matalo dameerkan nama matalo okay meeshii jiga ahayd gumaysi kor saaran ayaa jira warbal meel aan ku yar neefsano ee xorta ahayd inaynu xeerkii xalaasha soo celino okay Sidi Cabdulla Xasan muxuu qabtay Soomaaliya xawataako waxay ku tahay jijiga okay Axmed Gurey muxuu qabtay Axmed Sheekh muxuu ahaa yaani inagu baabaasha u dagaalana haddana nacaskeena u baa cudurka keena nacaskeena han qabano wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh